wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya ayaa sheegtay inuu jiro walaac ku saabsan in cudurka Ebola uu soo gaaro Soomaaliya kadib markii maalmihii la soo dhaafay laga helay dalka Uganda. Dalka Kenya ayaa sidoo kale mas'uuliyiintu sheegeen inay baarayaan dhowr qof oo lagu arkay calaamadaha u eg kuwa Ebola hase yeeshee mas'uuliyiintaasi caafimaadka weli ma aysan xaqiijinin. Dadkaasi ayaa si gooni ah loogu karantiilay kadib markii lagu shakiyay inay la xanuunsan yihiin calaamadaha cudurkaasi waayadan dambe ku baahayo qaaradda Afrika Ebola. waxaana saddexdan qof loogu hayaa isbitaalka Kirojo ee magaalada madaxda ismaamulka ee Kericho ee dalka Kenya. Wasiir ku-xigeenka caafimaadka Soomaaliya Maxamed Saciid Cabdullaahi ayaa sheegay in dawladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed ay waajib tahay inay ka foojignaadaan cudurkaasi isla markaana wadamada Soomaaliya ay xiriirka la leeyihiin ay kala hadlaan. Isagoo uu waramay idaacadda VOA ayuu sheegay in xilligaani aysan jirin qatar ku saabsan cudurka Ebola oo Soomaaliya lagu cabsanayo hase yeeshee feejignaan ay wadaan wasaaradda caafimaadka ee Soomaaliya. Sidoo kale mandate wasaaradda caafimaadka waxa weyn inay ilaaliso waxyaalaha emergency-ga iyo dhibaatooyinka markii wadanku ay la soo gudboodaan dhinaca caafimaadka. marka insha Allah ta'ala ilaahay waxaan ka baryaynaa cudurka la sheegayo run ahaantii hadda wadamo Afrikaan qaar ku dhacay in ilaahay uu naga hayo uusan la soo gaarin laakiin waxa waajibaadkeena saaran ay waajibaadka naga saaran arrintaas waxay tahay inaan diyaar garowgii loo baahnaa aan diyaar garowno annaga kaliya ma ahan hay'adaha caafimaadka caalamiga sida maxaan raahdaa WHO iyo ururada kale ee arrimahan run ahaantii ku guda jira ayaanu kala tashanaa sida ay isu bedesho alertiga mise maxaan raahdaa dhibaatooyinkan sida ay xaaladdu maraysana update ayaan ka helnaa anaga ka dawladda Soomaaliya ahaan wixii noogu aadan arrintan iyo meelaha khatarta ay ka iman kartay wadamada run ahaantii la soo mari karana xiriir ayaan la yeelanay oo aan leenahay sidee qaabkay anagoo dhan anagoo wada jira aan uga hortagi karno sida muuqatana cabsidu mar walba way jirtaa waa cudur faafayo adduunka oo dhan dhibaatadii uu geystay waa la ogyahay laakiin in public ay baanigareeyaan cudurkan caalamiga ee caafimaadka adduunka way ka digayaan oo xaaladdu inay hadda gacanta lagu hayo oo aan wax dhibaatooyin kale oo intaas sii badan sida wasaaradda statementiga ay soo saartay ay caddaynayso ayaan jirin Soomaalina hadda khatar oo direct ah inay jirin ayaanu ummadda Soomaaliyeed annaga